madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo ka tacsiyay geerida Xaaji Cabdiraxmaan Waraabe. baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ka dooday hindisa sharciyeedka dakhliga iyo shirkadaha. imtixaanka shahaadiga oo maanta bilaabmay. 17 qof oo ku dhimatay duqeymo ay Mareykanka ka geystay Soomaaliya. khilaafka doorashooyinka Jubbaland oo sii xoogaysanaya. Erdogan oo ka dalbaday madaxda caalamka inay ahamiyad siiyaan Falastiin. Turkiya oo sheegay inay dhamaystireen gadashada nidaamka difaaca ee S-400. Algeria oo weli banaanbaxyo ka jiraan. Faiz al-Siraj oo ka dalbaday Mareykanka joojinta taageerada ee uu siiyay Xaftar. caalamka oo u dabaaldegayo dhalashada amiirka cusub ee Britain balse way iska indhatireen dhibaatada haysata carruurta dhibaataysan. Hazard oo ku guuleystay jaa'isad. Salah oo sidoo kale ku guuleystay jaa'isad kale.